Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay malabka. Waxaan dul istaagi doonaa faa'iidooyinka malabka si cilmiyeysan. Marka laga hadlayo malab, waa in marka ugu horreysa la soo qaataa taariikhda malabka. Malabka taariikhdiisa aad ayay u dheer tahay. Waxaan ka bilaabaynaa malabka ayaa waxa uu ahaa mid la isticmaali jiray waayo aad u fog, ugu yaraan 8,000 oo sano ka hor. Waxaa loo isticmaali jiray in lagu macaaneysto raashinka. Dadka qaarna waxay u isticmaali jireen raashin ahaan balse ummadda muslimka ah waxa uu soo gaaray isticmaalkiisa 1400 oo sano ka hor. Waxaa looga hadlay Qur'aanka iyadoo lagu sheegay in fiihi shifaa ama in caafimaad uu ku jiro, faa'iidooyin caafimaad uu leeyahay malabka. Allah ayaa wuxuu Qur'aanka ku sheegay وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أنا أدليل آياته القرآن كأها اللي حريري ملبك إياه شنيدا علم بارسة لو سميي ملبك محن كدر ديجينا محن كقاضا ديجينا ملبك محو كسميسن يحي ملبك وحو كسميسن يحي قولكيبا 20 بيو وقولكيبا 8 نفقوين ككله وكوبن yahay waxaa kamid ah miinaad, macaadin iyo amino acidyo loogu talagalay jirka borotiinkiisa inay dhisaan. Sidoo kale waxaa ku jira antioxidant wax loo yaqaan oo ah sunbaabiyeyaal jirka ka ilaaliya sunta. Sidoo kale malab ayaa waxa uu leeyahay kalaro kala duwan. Kalaradan waxa uu ku xiran yahay geedka ay shinnida soo daaqday. Malabka ayaa waxaa lagu ogaaday faa'iidooyin tiro-beel ah, balse waxaan ka soo qaadan doonaa cilmi baarisyadii sugnaaday. Cilmi baarisyada waxay sheegayaan in malabka uu leeyahay ama uu baabi'iyo ama daaweeyo infekshanada ku dhaca caloosha ama meelaha kale. Wuxuuna ku daaweeyaa ama ku baabi'iyaa infekshanada 3 qaab mid ka mid ah. Malabka ayaa waxa uu leeyahay aashid aad u ziyaada ah oo u dhexeeya 3.2 ilaa 4.5, taasoo u diideyso bakteeriyada iyo jeermiska inay ku koraan meeshii, kana dhigayso meel aamin u ah korriimada caadiga ah. Sidoo kale malabka waxa uu leeyahay biyo yar, wuxuuna nuugaa qoyaamada iyo dheecaanada. Sidaa darteed bakteeriyada ma ku noolaan karto, maadaama bakteeriyada aan ognahay inay u baahan tahay qoyaan iyo huur. Sidaa darteed marka bakteeriyada waxay ku dhimanaysaa halkaas. Qodobka kale, malabka ayaa waxa uusan lahayn maadada nitrogen loo yaqaano. Nitrogenka ayaa waxay tahay mid bakteeriyada ka qayb qaadata korriimadeeda. Haddii nitrogenka uu ka maqan yahay halkaasna waxaa imaanaysa in bakteeriyada koritaankeeda uu joogsado, aysan helin awood ay ku sii faafto cudurkiina ay ku keento. labaad, waxaan ku soo qaadanaynaa malabka waxa uu ka qayb qaataa dhiigga soo celintiisa. Sida aan ognahayba malabka waxa uu leeyahay iron ama bir ku jirto gudihiisa. Sidaa darteed ironkaas wuxuu keeni doonaa in uu dhiigga aad u siyaadiyo. Qodobka labaad ayaa waxa ay tahay malabka waxa ku jiro maadada fructose loo yaqaano oo ah sokor diyaarsan looguna talagalay in jirka ay siiso energy aad u fara badan. Sidoo kale waxa uu ka hortagaa cudurrada ay ka mid yihiin atherosclerosis si uu u noqdo dhiigga mid qulqulkiisa uu wanaagsan yahay. Sidoo kale qodobka ee faa'iidooyinka uu leeyahay malabka ayaa waxa uu leeyahay antioxidant wax loo yaqaano ama wax baabi'iyo sunta. Antioxidantska waxay baabi'iyaan waxyaabaha haraadiga ah ee ka soo haro seelka ama unugga. Maadaama seelka uu soo saarayo energy, waxa uu yeelan doonaa waxyaabo haraadi ah oo lactate iyo waxyaabo kale lamid ah aashitooyin, taasoo dhibaateyn karta seelka haddii uu iska dhex yaallo. Sidaa darteed marka antioxidants ama sunbaabi'iyaasha waxay baabi'iyaan wixii sun ahaa ee jirka soo galay. Marka waxaa jiro noocyada ku jiro ilaa 4 nooc oo antioxidant ah oo laga helo malabka. Waxaa loo kala yaqaanaa pinosembrin, pinosine, galachin iyo glycine. Afartaas sida lagu ogaado cilmi baarisyo fara badan oo hore loo sameeyay. Qodobka afaraad ee faa'iidooyinka malabka waxaan ku soo qaadanaynaa malabka waxa uu ka hortagaa
hortagaa wax loo yaqaano vitamin and mineral deficiency, taasoo ah in malabka uu ka hortagayo in hoos u dhac ku yimaado fitamiinada qaar iyo macaadinta jirka muhiimka u ah, maadaama uu malabka ka kooban yahay fitamiinada loo yaqaano B vitamins B1, B2, B3, B5, B6. sidoo kale waxaa ku jira malabka vitamin C oo ah mid ka hortago xanuunada ku dhaco ciridka iyo afka. sidoo kale macaadinta ku jirta ee muhiimka waxaa ka mid ah iron, magnesium, potassium, calcium, phosphate, sulfur, chlorine, sodium. dhammaan maadooyinka aan soo sheegnay waxay muhiim u yihiin caafimaadka jirka bini'aadamka. waxaase jiro maadooyin ku yar sida copper, zinc, iodine, maadooyinkaas oo jirka tirayar ugu baahan yahay. sidoo kale baaritaano kala duwan oo lagu sameeyey malabka ayaa waxaa lagu ogaaday malabka inuu yahay maado wax dhayda jirka meesha dhaawaca gaaray iyo dhaawacyadaba u fiican, maadaama malabku uu yahay mid nuugayo qoyaanka hawada ku jiro agagaarka dhaawaca gaaray. waxay ka joojisaa bakteeriyada inay ku korto iyo in qoyaanka ay baabi'iso, taasoo wax weyn ka tarayso waqti caafimaadkeeda. sidoo kale malabka ayaa wuxuu kor u qaadaa bogsashada meesha xanuunaysay, wuxuuna ka hortagaa qolfoowidda asigoo oo kicinayo epithelial cellska si ay u koraan una dayactiraan dhaawaca meesha uu gaaray. sida baaritaano lagu ogaaday mar kale, waxaa la ogaaday malabku inuu u fiican yahay hargabka, qufacana uu joojiyo, especially gaar ahaan carruurta yaryarka ah oo aad u qufacda habeenkii. waxa uu leeyahay caafimaad. malabka ayaa waxaa loo isticmaalaa isigoo cayriin ah si uu u baabi'iyo qufaca una tirtiro infekshanada dhuunta. sida aan ognahayba malabka ayaa waxa uu leeyahay daxaar kaasoo protect gareeya ama ilaaliyo bakteeriyada inay ku korto dhuunta uuna keeno qufac iyo waxyaaba la xiriiro. haddaba waxaad ogaataa malabka ayaa waxaa tijaabiyey dad aad u fara badan, waxaana lagu sameeyey cilmi baarisyo badan, waxaana lagu ogaaday in uu u fiican yahay qufaca habeenkii.